hooyada waa midda maanta dunida qof waliba oo ku nool uu ku faano aaminsan yahay inay tahay qofka ugu naxariista badan leh aadna u jecel yahay uusanna ogolaanaynin marnaba inuu wax kale ku beddesho waxa ay leedahay xuquuq fara badan aan la soo koobi karin qof waliba hooyadii waxa uu jecel yahay ka badan inta uu dadka kale jecel yahay laakiin nasiib darro saqiirtii yareed ee la salciyay intaasoo dhan ma helin ku soo dhawow qisadeena toddobaad ee saqiirtii la salciyay oo aad kala socotaan kanaalka cilmi kororse haddii aad nagu cusub tahay fadlan saar subscribe si aad ula socoto qisooyinka kale soo socda siina gaarsii asxaabtaada balaayadan haleeshay bushra iyo bahdilka ay ku soo kortay waxa uu ka soo bilowday markii ay ku jirtay caloosha hooyadeed waxa maqaalo ku ah in hooyadeed iyo aabaheedba ay ahaayeen laba qof oo aad isku jecel sidaana isku guursaday laakiin markii guurku u dhacay kadib halkii laga filayo farxad iyo reereyn ayaa odagu waxa uu bilaabay inuu hooyada dayaco baahi ku dilo aad u cabiysado mararka qaarkoodna uu garaaco arrintaasi waxay keentay hooyada si lama filaana iyadoo wax fasax aan ka qaadanin odaga inta isbitaal tagto iska soo tuurto cunugii koowaad laakiin nasiib darro waxaa looga soo dhex tegay qayb ka mid a muddo kadib waxaa la ogaaday in cunugii la soo tuuray qayb ka mid a jirkeeda uu ku jiro waxa ay u suuragelisay odaga inuu ogaaday in cunugiiba maamada soo tuurtay haddana mar kale hooyadu waxa ay uurka ku qaaday bushra laakiin halkan bushra waxa isweydiinaysaa laba su'aalood waa midda koowaade maxaa keenay colaadda ilaa ay cunugii koowaad ee walaalkeed ama walaasheed noqon lahaa soo tuurto midda labaadse waxay tahay maadaama cunugii koowaadba hooyada iska soo tuurtay maxay haddana iyada u qaaday maxay uga tegi waysay aabbaheed oo nin kale u guursan weysay maxaa keenay in noloshii dib laysugu soo noqdo maadaama dhib culus oo hore u dhacay bushra waxa ay jeclaan lahayd inay ogaado su'aalahaasi jawaabahooda oo idil laakiin nasiib darro labadii ruux ee arrintaasi u sheegi lahaa maanta labadoodaba dunida ma joogaan aabbaheed markuu ogaaday in maamadu ay uur yeelatay waxa uu go'aan ku gaaray sidii boorsadii oo kale inuu gacanta ku sito waxa uu booliiska ka soo qaatay katiinad iyo oggolaansho ah in laba qof oo dembiila oo kale labadooda gacnood isku xirnaadaan si uu uga badbaadiya inay mar kale soo tuurto cunugan caloosha ku jira bushra 9 bil caloosha ay ku jirtay hooyadeed ku siday aabbaheedna wuu ku garab xirnaa waxa ay ahaayeen laba qof oo aan marna kala harin bushra waxa ay leedahay naagtii i dhashay ee dunidan aniga i keentay way ii diidday inay i nuujiso caanaheeda way ii diidday inay hal mar hab i siiso markii ay i dhashay kadib waxay aabbahay ku tiri qaado wixii aad 9 bil iyo maalmo sugaysa waa kaa meeshaad geynaysa gee khayr allaha siiyo allaha ilaaliya habaryartay ayaa i daftay weligay aniga caano hooyo ma nuugin waxaan ku soo barbaaray gacanta habaryartay iyo ayeeyaday aabbahay dhashay ma garan karo waxa ahba hooyada ii ahayd iyo inay jirtaba mar dambaan ogaaday in hooyadan i dhashay aniga haddana mar kale ayay hooyada uur yeelatay markii aabbuhu uu ogaaday in maamadu uur leedahay waxa uu ku yidhi haddii cunugan aad caloosha ku sido uu yahay wacal iska soo tuur laakiin hooyada si madax adeeg leh ayay waxay ku tiri cunugan adiga ayaa leh waan dhali doonaa laakiin markii cunugan aan dunida ilaahay ii keeno maalinkaas ani adiga suu keena dambayso way furi doontaa waxa ay dhashay gabar ay aad u jeclaatay markaa kadib waxa ay dacwad ku furtay aabbihii waxaana la isla tagay maxkamaddii si loo kala tago maxkamaddu waxa ay tiri carruurta idii joogtay labada ah yaa lagu wareejinayaa mas'uuliyadda masuwaad kala qaadanaysaan aabbahay waxa uu yidhi carruurta isku qaado ama ay wada sii maxkamaddu waxa ay raacday go'aanka aabbahay waxaana hooyada lagu amray inay labadeennaba aabbahay nagu wareejiso ama na wada qaadato iyadoo aan faraxsanayn ugu qanacsanayn aadna u murugsan ayay tiri hal igu wareejiyay labadooda laakiin mas'uuliyaddooda anigaa qaadi doona waxaa gacanta la ii geliyey naagtii inta i dhashay i tuurtay caanaheeda ii diidday i dayacday weligeed aan xataa hooyo ii quurin isoo booqanin kor aan ka aqinoo la ii sheegay inay hooyaday tahay waxaan imid guri aanan aqoonin waxa uu yahay
aabbahay waxa uu lahaa xaas kale iyo carruur kale inkastoo aan aad rafaad fara badan ugu qabay iyagana laakiin ugu yaraan waxa joogay aabbahay oo mararka qaarkood ii naxariisan jiray intaa waxaa iiga sii daran hooyaday weligeed hal isbuuc oo kaamil ah gurigeeda ma joogin aabbahay ayay taleefon ka wacdaa way isdagaalaan aniga oo jiifa oo hurdaya waxaan soo toosaa aniga oo jooga guriga aabbahay markaan weydiiyo inta waxa yaa i keenay hooyadaa ku keentaa laygu yidhaahdaa subaxdii haddana way soo doontaa way celisaa way isdagaalaan aabbahay wuu isoo kaxeeyaa guriguu i keenaa waxaan ku noolaa arrintaasi muddo aad u fara badan dagaalkan iyo jiijiidkan dhex maray labadooda waxa ay keentay in aabbahay hooyaday uusan waxba siinin uu yidhaahdo carruurta adiga biilo haddii kale igu soo wareeji anigaa biilanaya waxaa dhici jirta mararka qaarkood markii aan idhaahdo aabbo lacag isii wuxuu ii dhihi jiray lacagtaan ku sii hooyadaa u geenaysaa aabbahay waxba kama ogaa hooyaday sida ii necab tahay iyo inaysan ii aqooninba inay tahay cunug ay iyada dhashay markaa kadib hooyaday waxa ay guursatay nin da ahaan iyada 25 sano qiyaastii ka weyn waxaa la sheegay inuu ahaa nin aan carruurna lahayn xaaskiisii uu qabanaya hore u dhimatay ninkan waxa uu ahaa nin baabuur leh kana shaqeeya dhuxusha waxa uu ahaa nin nolosha hooyaday wax ka beddelay xoogaa dejiyey stresskii faraha badnaana ka qaaday waan xusuustaa aniga marka uu yimaado waxa uu iga qaadi jiray gaarigiisa khayr allaha siiya waxa uu ahaa qof iiga fiican hooyaday waxa ay yeelatay uur iyada oo faraxsan kuna qanacsan ninkan oo aan ahayn qof mar walba nala jooga maadaama dhuxul uu ka shaqeeyo marka uu noo yimaadana hooyaday aad u farxad gelin jiray waxa ay aad ugu qanacsanayd uurka ay leedahay waxa ay dhihi jirtay waxaan dhali doonaa cunugeygii labaad anigu ma ihi qof hooyaday u tirsan ma ihi qof ay dhashay oo ilmaheeda ka mid ah laakiin nasiib darro hooyaday waxaa sikidiisa loogu soo sheegay in ninkan uu leeyahay xaas kale 11 carruurana u joogto wax dhintayna aysan jirin waxa loo sheego oo dhanna ay been yihiin haddii ay isku daydo inay cunuga soo ridana aysan suuragal lahayn maadaama bishii 9aad u galay waxaa la yaab leh hooyaday mar waliba oo ninkaasi ay la dagaasho ay aad isku dagaalaan aniga igu xanaaqdaa aniga i garaacdaa igu ciilgoysaa waxaan fahmi lahaa ilaa iyo hadda maxaa keenay dagaalka iyada iyo ninkeeda ka dhaxeeyo aniga inuu igu soo leexdo wax kastoo ciil iyo cuqdad ay qabto aniga iga goysaa si xun ayay ii garaacdaa mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa maxaa qaldan hooyaday waxa ay igu dishay gaajo aad ayay ii cadaabtay waxay iga xiran jirtay jikada ima aysan ogolaan jirin inaan cunnada caadigaa cuno mararka qaarkood waxaa dhici jirtay cunnada ka hartay ee meelaha ku dhacdhacda inaan aniga cuno oo aan noloshayda meeshaasi ka raadsado waxaa kaloo dhici jirtay in mararka qaarkood aan aado deriska aniga oo jooga hooyada inta iga daba timaado markii wax la isiin raba ay tiraahdo naa hadda sooma cunin waan ku hooy may wax ma soo cunin jikada waa xiratay beenley khaa'inad ah maxaad ummadda beenta uga sheegaysaa naa soco cunto gurigay taallaa jikaduna way furantahay soo cun way iga soo ceyrin jirtay xataa deriska waxa ay isiin lahaayeen waxaan ku noolaa nolol aad iyo aad u ciriiri u ah gaajo fara badan indhaha waxaan dareemi jiray inay ragga qaarkood ay damayaan waxaan xusuustaa oo aanan weligay iloobi doonin hooyaday inta ay cunno fiican karsadeen gabadheedii siisatay aniga qolka igu soo xirtay aad carafta cuntada ka soo baxaysaan meesha ka dareemayay aad u dhareeray sida ugu baahanahay darteed iska seexdeen kadib gaajada naf intaan noqday aan cunay alwaaxa daaqadda uu ka samaysan yahay markaan 9 jirka ahaa hooyaday carruurtii kale waxay u tirsatay dugsi quraan waxay dhihi jirtay insha Allah kuwaan waxay ii noqon doonaan xaafidiin aniga kuma jiro kuwa dugsiga loo diro waan ooyaa wax kastaan isku dayaa qof gaajo lagu diyo oo xataa loo diiwayo yaa dugsi u diraaya ugu dambayntii markay iga yaabtay ayay dugsiga ii dirtay 9 bil gudahood waxaan xifdiyey quraankii oo dhan waxaana la isoo siiyey shahaadada inaan xaafid ahay cadaynayso aniga oo faraxsan iloobay waxay ii geysato hooyada iyo gaajada i hayso oo shahaadadii wato aad u faraxsan ayaa waxaan u keenay hooyaday waxaan ka rajaynayay inay i dhiirigeliso wax kaloo wanaagsanna ii samayso waxay hooyaday igu tiri